Assalaamu calaykum soo dhawow muuqaalkan dhammayso waxaadna ku arki doontaa challenge-yadii TikTok ugu halista badnaa. TikTok dadka muuqaalada sameeya waxay u isticmaaleen siyaabo kala duwan. Dad waxay ku soo gudbiyeen barnaamijyo faa'iido leh amaba iska bannaan, dadna waxay u isticmaaleen dhinaca xumaanta iyo noocyadeeda. Sheekh Mufti oo ka hadlaya wuxuu yidhi TikTok dadna waxay ku kasbadeen janno, dadna waxay ku kasbadeen naar. Waa kana muuqaalku kaga hadlayo ila daabo kadib ayaan isku soo laaban doonaa. There are people earning Jannah through TikTok, and there are others earning Jahannam through the same means. Imagine when you die, what would you like? Horta muuqaal samaynta markii laga hadlayo waxay u kala baxdaa laba nooc: education iyo entertainment, waxbarasho iyo madadaalo. Meesha ayayna ka sii kala baxaan. Meesha dhibaatada inta badan ay ka imaado iyo in xumaata lagu soo gudbiyo waa qaybta entertainmentiga ama madadaalada, oo inta badan dadka madadaaliyaasha ah ay ku soo gudbiyaan baraankiyo ama challenge-yo halis ah oo mararka qaar sababi kara dhaawacyo iyo dhimasho. Waxaa idin tusi doonaa challenge-yadii ugu halista badnaa ee soo mara TikTok iyo dhibaatooyinka ka dhashay. Challenge-ga ugu horeeya waa Penny Challenge ama taxaddiga shilinka. Challenge-gan wuxuu qayb ka yahay korontada, wuxuuna u dhacayaa sidan: jarjarka telefoonka inta la soo qaado, socketka ama outlet-ka in yar laga geliyo ayaa shilin inta la qaado kor lagaga soo deynaya. Marka dadka sameeya challenge-gan natiijada ay ka rabaan waxay tahay in xoogaha maanse yar ee meesha ka kacdo ayna qosqoslaan ay ka cararaan, laakiin waxaa dhici karto in korontada qeybaheeda kala duwan ay halaabaan, fiyuusyo badan ay gubtaan ama in guriga dhan uu gubto, sidaasna naf iyo maal lagu waayo. Challenge-gan inta badan waxaa sameeyey da'yarta 9 jirada iyo 10 jirada. Qof da'yar hadduu daawanayo muuqaalkan waxaan kaaga digayaa challenge-gan iyo challenge-yada soo socdaba inaad samayso, sababtoo ah waa kuwa halis ah, halis gelin kara naftaada iyo tan ehelkaagaba. Markaan leeyahay challenge-gan waxaa sameeya 10 jirada, waxaa ka mid ah haweeneydan oo Twitter-ka soo gelisay ayadoo ka cabanayso challenge-gan. Waxay tiri gabaraan dhalay oo 10 jir ahayd ayaa waxay weydiisay Alexa aaladda Amazon uu sameeyey oo su'aalaha la weydiiyo ama ay ka caawiso, tusaale ahaan nalka ii dami oo kale, hees hebel ii daar oo kale. Marka Alexa waxay weydiisay challenge inay usoo bandhigto ama ay kula taliso. Markaas waxay ugu jawaabtay Alexa inay samayso challenge-gan simbalka ah, keliya waxaad samaynaysaa jarjarka intaad soo qaadatid half aad ka gelisid kadibna shilin ku tuur, waxaana ka dhalan doono qarax yar saaad ka arki kartid qoraalkan. Dabcan jawaabta ay siisay Alexa inay ku qaldan tahay inay ku saxan tahay kama hadli doono, waxaa cad inay ka soo qaaday website-yada. Challenge-gan intaan baarayay kuma arkin khasaaro weyn uu geystay aanan ka ahayn in jarjarkii iyo meesha la gelinayay ee socketka ay isla wada dhalaaleen. Challenge-ga labaad waxaana dhihi karaa kan ugu halista badan listigeena. Challenge-gan waxaa loogu yeeraa blackout ama madoobaad, yacni korontada markay baxdo oo kale madoobaadka. Waxay kaloo ugu yeeraan pass out challenge, taxaddigii dhimashada. Challenge-gan wuxuu trending ahaa 2021gii, laakiin wuxuu jiray oo bulshada dhexdeeda uu ku wareeganayay khaasatan da'yarta ilaa sanadkii 2008, laakiin wuxuu soo shaacbaxay 2021gii ee dhanka TikTok-ga, waxaana u dhintay dad badan. Challenge-gan waa ilaa intee la eg oo neefta aad isku celin kartaa. Marka qofka challenge-gan ka qayb qaadanaya wuxuu samaynayaa inuu neefta isku celiyo ilaa uu dhulka kaga dhaco. Qofka markuu neefta isku celiyo in muddo ah, waxaa dhici karto in maskaxdiisa dhaawac soo gaaro iyo in mararka qaarba ay u dhintaan dadka. Sidaan wada ognahay, maskaxda waxay qaadataa 20% oksijiinka jirka soo gala oo dhan, marka uma dul qaadan karto oksijiinka in lagu yareeyo. Marka qofkii in muddo hadduu neefta isku haayo, waxaa macquul ah inuu sidaas uu ku dhinto. Dadka isku mid ma ah, dad xaalad degdeg ay galayaan, dadna waxaa waaye in ay suuxaan oo kale ay markaas soo kabsadaan. Dadka challenge-gan ku dhintay waxaa ka mid ah wiil 12 jir ahaa oo lagu magacaabo Joshua. TikTok challenge-gan waxay ka xirtay searching bar-ka meesha laga raadiyo challenge-yada iyo fiidiyowyada lagu qoro magacyadooda. Waxaa la yaab leh laakiin dadka isticmaala challenge-yadan ee dhibaatada ka soo gaartay ee kuwa qaar xataa isku dayeen inay suugareeyaan, ay dacweeyaan TikTok-ga in da'dooda ay ka yar tahay da'dii loogu talagalay TikTok-ba inay isticmaalaan. TikTok waxaa account lagu samaysan karaa da'da 13 iyo wixii ka weyn, laakiin ilmaha yaryar oo ku dhintay waxay jiraan tusaale ahaan 9 jir iyo 10 jiro iyo 12, 11. Waxaa ka mid ah gabadhan yar oo lagu magacaabo Ariani oo u dhimatay challenge-gan ay samaysay sanadkii
2021 bishii labaad familkeedan waxay isku dayeen inay suugareeyaan ama ay dacweeyaan TikTok qof u hadlayn wuxuu yiri challenge-gan waxaan ka soo saarnay warbixin ah in aan la isticmaali karin oo markaasna ay jiraan kuwa yaryar oo ku soo dhuunta su'aashan waxay ku soo noqon kartaa waalidka oo u ogolaaday in ilmahooda isticmaalaan TikTok ayagoona gaarin da'dii oo TikTok loogu talagalay amaba ay ka wacyigeliyaan dhibaatada ka soo gaari karto social media aanu gudubna challenge-ga saddexaad challenge-gan waxaa la dhahaa throw it in the air ku tuur hawada sida aad ka arki karto magaca waxaa kor loo tuurayaa shay oo markaas la rabo in la arko qofka ay ku dhici lahayd waxaa isku imaanayso kooxda dheelayso markaas ay garabkiis qabsanayaan ay isku soo wareegsanayaan kadib waxay kor u tuurayaan shay oo markaas la rabo in la arko qofka ay ku dhici lahayd laakiin waxaa fiicnaan lahayd mar walba inay isticmaalaan sheeyo yaryar oo fudud oo markaas dhaawac weyn aan geysanaynin nasiib wanaag waxaa jirtay dad isticmaalay sheeyo culculus sida boorsada dharka oo kale iyo ama jaranjarta derbiga lagu fuulo inay kor u tuuraan markaas ma malaysan kartaa dhibaatada ay geysan karto jaranjartaas qof haddii ay ku dhacdo madaxiisa challenge-ga afaraad waana kan ugu dambeeya aan ka hadli doono waxay ugu yeeraan fire mirror ama dabka muraayadda challenge-gan wuxuu u dhacayaa qofka intuu soo qaado waxyaabaha tinta lagu buufiyo in lagu buufiyo muraayadda kadibna laga sameeyo sheebyo ama qaabab oo xidig ama waxyaabo lagu sawiro kadibna dabka lagu taabto halista ka dhalan karta waxaa ka mid ah in ay miiska wax saaran yihiin markaas oo qarxi kara ama korontadaba ay sii gaarto oo guriga saas uu ku gubto dadka dhibaatooyinka ka soo gaaray challenge-gan waxaa ka mid ah gabadh yar oo ka soo jeeda gobolka Oregon ee Mareykanka gabadhan waxaa lagu magacaabaa Destiny waxayna ka gubatay qoorta iyo gacanta waxayna markii dambe la geliyey ICU-ga ee isbitaalka loo qaaday dhibaatadan waxay ka soo gaartay in miiska ay saarnaayeen waxyaabo alcohol ama dabka hadduu taabto sii qarxi kara challenge-gan wuxuu ka mid yahay challenge-yada ay TikTok markaas ay xirtay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan like saar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu